soo gudbinaa website-ka ugu wanaagsan ee Soomaali qorto kaasoo aan idiin sameynay annaga iyo timaan saaxiibanahay. Halka waxaan ku soo gudbin doonaa insha Allah maqaalo kasta oo ku saabsan sida looga shaqeysto online-ka, welibana cryptocurrency iyo forex ayaan xooga saari doonaa mowduucyo ku saabsan. Hadda waxaan diyaarinay 13 mowduuc oo ku jira website-keena, sidoo kale tools qurux badan ayaad ka helaysaa. Okay, sidee ayaa loo furtaa domain market? Halkan tusaale kan oo kale ayaan ku dhufanayaa linkigan deetana qaabkii loo furanayay oo sharaxaad qurux badan ayaan idinku sharaxnay oo qof kasta fahmi karo level kasta fahmi karo. Okay, sidoo kale waxaan idin sameynay website-kan aad wuxuu ugu qurux badan yahay. Waxaan ka hadlnaa oo ku soo koobinaa kaliya wax kale aanan ka hadlay financial markets-ka. Sidee ayaa loo furtaa domain markets? Forex bilow haddaa tahay kee kugu fiican broker fund charge inaad furato waad akhrisan karaysaa. Farqiga u dhexeeya spot iyo future dad badan ayaan garanayna oo crypto isticmaala. Si trading meta trading maxay kala fiican yihiin? Sidoo kale waa maxay bull run? Sidee lagu garto sida lagu garto waqtiga bull run-ka? Sidoo kale sida loo qaybiyo airdrop-ka? Qof kasta waa website aad u fiican. Sidoo kale waa maxay token unlock faham fudud ku habboon. Haddaan hore farqiga u dhexeeya degsiga iyo exchange-yada midka ayaa ku habboon ganacsigaaga. Sidoo kale sida loogu trade gareeyo memo coin-ka faham fudud kooban ayaan mowduucana kaga hadalnay. Maxay tahay fear and greed saameynta ay ku leedahay suuqyada maaliyadda? Waa maxay naftiin faham fudud ku saabsan ayaan idin diyaarinay iyagana. Sidee ganacsi loo dhisaa meelo tartan jiro? Kaas waa mowduuc ganacsi aan kaga hadalnay aan iska dhex raacnay. Siraha OTC habka qorsheyna Bitcoin Wales ku isticmaalaan. Website aad u qurux badan website-kan waxa dhahay ustaadka.blogspot.com insha Allah dhoomin kana maalmo dhow ayaan iibin doonaa insha Allah ka faa'iideysta. Assalaamu calaykum. Linka description-ka ayaa idin dhigayaa. Sii share garee. Assalaamu calaykum.